qodobada wararkeena habeenkani caawa ugu door karoon waxaa ka mid ah madaxweynaha Somaliland oo maanta soo gaaray magaalada madaxda Djibouti. baryahan dambe waxaa aad looga dareemay gabaabsi dhinaca basaska dadweynaha oo aad ay u yaraadeen. dhinaca wararka adduunkana dalka Mareykanka doorashooyinkii ka dhacay maalintii shalay toole ayaa ay ku guuleysteen doorashooyinkaasi xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته عويس وناكسن داوديال ملكستو جوجتان كسو دواده وركي دالكا مدحوينها Somaliland أحمد محمد محمود السيلاي ayaa soo gaaray magaalada madaxda Djibouti maanta galikii dambe isagoo oo safarkiisa ay ku wehelinisay xaaskiisa iyo wafdi ka kooban wasiiro. madaxweynaha Somaliland ayaa waxa garoonka diyaaradaha ee magaalada madaxdan Djibouti ku soo dhaweeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele iyo xaaskiisa Khadra Maxamuud Xayd iyo waliba wasiirro dhowra iyo mas'uuliyiin kale oo reer Djibouti ah si heer sare ah ayaa lagu soo dhaweeyay Djibouti madaxweynaha Somaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Silayo iyadoo garoonka diyaaradaha loo dhigay gogosha cas ee lagu soo dhaweeyo madaxda marti sharafka iyadoo ay safnaayeen walibana goobta ay sareer socdeen labada madaxweyne ciidamada baanbowda ee qaabilsan soo dhaweynta madaxweynaha Somaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Silayo waxaa safarkaasi ku wehelinaysa xaaskiisa Amina Waris Sheekh Axmed Jirde iyadoo ay ku wehelinayaan amba ay ka kooban yihiin wafdiga madaxweynaha Somaliland wasiirada kala duwan ee wasiirka arrimaha dibadda wasiirka ganacsiga wasiirka dhalinta iyo ciyaaraha iyo gudoomiyaha bangiga dhexe ee Somaliland iyo mas'uuliyiin kale oo iyaguna ka tirsan iyaguna mas'uuliyiinta Somaliland kadib labada madaxweyne iyo ayaa loo kaxeeyay dhinaca qolka marti sharafka madaxweynayaasha iyadoo halkaasi ay kulan ay ku yeesheen madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele iyo madaxweynaha Somaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Silayo ay halkaasi kulankaasi kaga wada hadleen cilaaqaadka wanaagsan ee u dhaxeeya Djibouti iyo Somaliland maalinta bari ayaa hadaba loo balansiiyay in kulamo hawleed la iskugu yimaado. dhinaca dalkan jamhuuriyadda Djibouti waxaa ka qayb qaatay kulankaasi amba soo dhaweyntaasi wasiirka wasaaradda amuraha dibadda iskaashiga caalamiga Maxamuud Cali Yuusuf iyo wasiirka warfaafinta mudane Cali Cabdi Faarax. madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa maanta ku qaabilay qasriga madaxtooyo agaasimaha wakiilka hay'adda UNESCO Monsieur Luc Rikagama oo u fadhiya caasimadda Addis Ababa. waxaana booqashadani hawleed uu ku joogi doonaa agaasimahaasi dhinaca hay'adda UNESCO laba maalmood dalkan jamhuuriyadda Djibouti waxaana intii uu kulankaasi ay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti iyo agaasimahaasi hay'adda UNESCO kulankaasi u joogay wakiilka UNESCO u fadhiya Djibouti Idris Yusuf Cilmi kadib markii ay kulankaasi ay wada yeesheen madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti iyo agaasimahaasi wakiilka hay'adda UNESCO waxa ay isla soo qaadeen xiriirka wanaagsan ee u dhaxeeya dhinaca hay'adda UNESCO iyo waliba dalkan jamhuuriyadda Djibouti. kadib markii uu ka soo baxay agaasimaha wakiilka hay'adda UNESCO ee u fadhiya caasimadda Addis Ababa ee dalka Ethiopia waxa uu sheegay in ay ka wada hadleen madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti iyo waliba isagoo ay ka wada hadleen xiriirka wanaagsan ee u dhaxeeya hay'addaasi u qaabilsan qaramada midoobay dhaqanka iyo waliba waxbarashada. J'ai eu l'honneur d'être ici ce midi. waxaa sharaf noo ah intuu la qaabilay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele annagoo kulankaasi aanu la yeelanay uga mahad celinay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti
dadaalka wanaagsan ee dalkan jamhuuriyadda Djibouti isagu kaga qayb qaato arrimaha xagga dhaqanka iyo tayo kor u qaadida xagga waxbarashada oo la og yahay dadaalka ballaaran ee dalkan jamhuuriyadda Djibouti dhinacyadaasi kala duwan u galay waxyaabaha kale aan uga mahad celinay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti ayaa ah in xubannimada dalkan jamhuuriyadda Djibouti iyadu ay ka mid tahay golaha fulinta ee ururka amba hay'adda qaramada midoobay qaabilsan xagga waxbarashada iyo dhaqanka ee UNESCO arintaasi ayaa iyada aad loo og yahay inay tahay mid iyadu dardar gelisay nidaamyadii kala duwanaa ee xagga markay noqoto in dadaalka lagu jiro halka heerka gobol ee degmadan geeska Afrika ee ku saabsan dhinaca horumarka waxbarashada iyo dhaqanka waxaan ku sheegayaa in iskaashiga wanaagsan ee haatan u dhaxeeya dalalka jamhuuriyadda Djibouti iyo hay'adda qaramada midoobay UNESCO inuu yahay mid aad u sareeya isla markaasina aanu doonayno in intaasi iskaashiga kor looga sii qaado waxaan kaloo tilmaamayaa in booqashadan aanu ku imanay aanu ku sii xoojinno iskaashigaasi iyo cilaaqaadka wanaagsan amba xiriirka u dhaxeeya labada dhinac iyadoo aanu ku tala jirnana anagu inaanu kaalin wanaagsan ka qaadano horumarkaasi Djibouti ay ugu jirto dhinaca ay markay noqoto qaybaha kala duwan ee lagu horumarinayo dalkan jamhuuriyadda Djibouti guddiga maaliyadda dhaqaalaha guud iyo qorsheynta ayaa maanta kulan ku yeeshay qolalka shirarka ee guriga ummadda ee magaalada madaxda Djibouti waxaa kulankaasi lagu eegayay mashruuca xeer ee tirsigiisu uu yahay 100 ee sanadkani 2010 ee xisaab xidhka ay ku shaqeysay hay'adda qaran ee biyaha ee Onyad iyada oo ay xisaab xidhkaasi lagu eegayay shaqada sanadkii aanu ka soo gudubnay ee 2008 kulankaasi waxa xagga xukuumadda uu ku matalayay wasiirka beeraha taranka xoolaha khayraadka badda iyo ka faa'iideysiga khayraadka badda iyo biyaha Cabdulqaadir Kaamil Maxamed kadib intii kulankaasi socday waxa ay ku sheegeen xildhibaanadu in mashruucaasi xeer lagu soo dhigi doono kulanka ay yeelan doonaan golaha baarlamaanka ee soo socda waxaana shugudoominayay kulankaasi xildhibaan Cumar Cabdi Saciid dadweynaha reer Djibouti ayaa baryahan dambe dareemay in baabuurta basaska gaagaabka iyo kuwa dhaadheerkuba ay gabaabsi ay ku noqdeen iyadoo ay waliba dhibaatooyin badan lagala kulmayo iyagoo oo halkaasi ay dadweynaha shaqaalaha hadda ay tahay iyo ardayduba ay leeyihiin basaskaasi goobaha kala duwan ee faras magaalaha waa magaala madaxdan Djibouti sida Balaaska Maxamuud Xarbi iyo dhinacyo kaleba ayaa laga dareemi karaa gabaabsi ku yimid xagga gaadiidka basaska iyadoo dadweynuhu ay intooda badan sida sawiradanba lagu arkayo iyagu ay lugeynayaan markay welibna waqtiyada noqoto inay iskuulada ay tagayaan amba ay ka soo rooxayaan dadweynaha kalena iyagu ee shaqo tagaya waqtiyada shaqo tagayaan iyo ka soo rooxayaan waxa saan noogu wacande maxaad sii raacaysiin imika de waan sugaynaa ila ma dadka marka la kala guro kadib un baa anagana de geedu weyta anu wax lidaaba ayaan galaa subaxina ma sidaas leegumba subaxi hadii ay 6 tahay waa caadi laakiin 7 ilaa 8 baabuur lama helaba daniyada iskoolku maxay soo raacaan waxay soo raacaan gaari xumbuliga caadiga ma deeshay subaxi ها وان هلا مرمرنا واوينا لما يلا بدن iskoolku niga dhaco naga dhaca marmar ilaa dii lixna soo kala naas waan sugnaa 7 xaga ma saaw joogeen duurkana waa saaw kala xaga ma ka raacnaa angeela ilaa angeela xaga ma joogeena misaga weeytii ilaa koodii barakada iyadoo ay la xiriirdo xuska maalinta qaran ee dhinaca xirfadaha gacanta oo ku beegan 7 bisha November ayaanu ku soo qaadanaynaa war kooban oo ka waramaya nolol maalmeedka Fuaad Axmed oo farsamada dhinaca dharyaha iyo waliba daawooyinka maanta aan ku soo qaadanaynaa waxa la qabtaa waxa la hagaajiyaa dharyaha waa la sameeyaa daawayaasha waxa la wixii shooladaha waxa la wixii sanacada yaryar ee loo baahan yahay oo dhan dalab weyn ma haysa dalab weyn kolba la helaa waxa laga helaa koroshayada marxawadaha kolba la iibiyaa la sameeyaa wax deesaa u sii badan ma laakiin imka shaqadan waxay u baahan tahay meel la dego oo laga shaqeeyo oo maartay dawladda ay dawladdu gacan qabato staade aan imisaati hawlahan ay ku jira
way badan yihiin halkan leenkana oo dhan waxaa fadhiya dad ilaa 11 qof 12 qof meelaha kalena way degaan kolka kuwa kalena way jiraan xagga Vinitraz iyo ku shaqeeya marka waxay u baahan yihiin meel la dejiyo oo maaragtay wax loo qabto muddada laga shaqeynayay sancadan wax soo saarka dadka maaragtay loo sameyn jiray way dheereed oo tan ilaa awowgay yaa ka soo shaqeyn jiray kulkooda meel weyn oo awowgay lahaa Greek leeyahay ayaa jiraysay oo weynayd oo ninkii u horreeyay garaajiiskii waddanka soo bilaabay baa shaqada iminkana dee aabbahay baa ku xigay bay ahayd dee waqtigii uu sir dhimay aabbahay kolkaa wuxuu ku yara dambeeyey waxaa uu hoyday kolkaa balaaskii aabbu ku shaqaynayay xaggan algamiil agtiisuun bay ahayd ilaa 3 sanadood fadhiyey wada intaayo ciyaal iyo annaka lagu soo koriyay marka iminkana dee walaalahay baa meeshii qabtay dadda mas'uulka guudkaan ee dusha ka ilaaliya kolkaa wixii 23 bishii Oktoobar oo ka soo gudubnay ayaa qaar ka mid ah xumal falayaashu ay midiyo iyo dhagax ay ku weerareen guddi ajnabi ah oo u yimid in uu maalgeliyo dalkan Jamhuuriyadda Djibouti waxaana guddigaasi oo waday mashruuc dhismo ah oo laga hirgelinayay kiilo 4 waxaana laba ka mid ah dadkaasi ajnabiga ee mashruuca waday dhaawac khafiifa la soo gaarsiiyay kadib markii ay weerar ku soo qaadeen dadkaasi sidoo kale waxa ay ciidanka Sheekh Muuse ee gendarmerigu ay u howlgeliyeen in ay baadi goobaan dadkaasi falka geystay iyaga oo ciidamadaasina lagu baahiyay koob cambaada kiilo 20 iyo waliba degmada Dameer Joog dhinaca wararka adduunka doorashooyinkii ka dhacay dalka